Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku wareejisay guri ay lahayd Salaama Maxamed Cabdiraxmaan oo ku dhawaad 28 sano gurigeeda looga haystay sifa sharci darro ah. Gudoomiyaha Maxkamadda gobolka Banaadir Dr. Muuse Macalin Maxamed ayaa ku wareejiyay furaha guri ay lahayd Salaama Maxamed Cabdiraxmaan gudoomiyaha degmada Kaaraan si uu ugu wareejiyo. Maxkamadda gobolka Banaadir waxa ay wareejinaysaa guriga kan aan joogno oo cabirkiisu yahay 12 lagu dhifto 12 gurigan oo ay leedahay maamada amba soo dacwootada Salaama Maxamed Cabdiraxmaan. Gurigan aan wareejinayno waxa uu ku jiraa mid kamid ah waxa weeye dacwooyinkii la keenay Maxkamadda gobolka Banaadir oo ku aadan guryaha ay gacanta ku hayeen dad aan lahayn banaankan ay ka joogeen dadkii lahaa. Maanta waxaan halkan degmada Kaaraan aan u imaanay arintaas. Waxaan ku wareejinayaa dokumentiga wareejinta gudoomiyaha degmada Kaaraan si uu ugu wareejiyo gabadha kamid ah dadka degmada uu xukumo ee Salaama. Waxaan markan siinayaa hadalka gudoomiyaha degmada kuna wareejinayaa dokumentiga si uu ugu wareejiyo furaha guriga kan soo dacwootada Salaama Maxamed Cabdiraxmaan. Gudoomiyaha degmada Kaaraan Cabdi Fataax Cali Nuur ayaa isna kaga mahad celiyay Maxkamadda gobolka Banaadir kaalinta cadaaladeed ee ka qaadatay sidii ay xaqeeda u heli lahayd hooyo dulmana oo muddo gurigeeda xoog looga haystay. waxaan kaaga mahad celinaynaa cadaaladda ay heshay walaashay Salaama aad iyo aad ugu in xaqi oo daahiro oo degmadayna guri kamida guryaha la haystay oo gacanta ka baxo dadka haystay aad iyo aad u soo dhaweynaa aad iyo aad ugu mahad celinaynaa Maxkamadda gobolka Banaadir. haddana waxaan ku wareejinaynaa Maxkamadda horteeda qofkii milkiyadiisa ka lahay Salaama Maxamed Cabdiraxmaan oo iyada looga been sheegay maxkamadaha dalka ayaa ka sheegtay munaasabadan kooban iyadoo haysata furaha gurigeeda inaysan filanaynin in mar ay cadaaladda u heelin doonto. ma filanaynin hadda waxay ugu noqotay lama filaan in xaqayga la ii soo celiyo. waana ku mahadsan yihiin. waxa kale oo mahad iska leh markay ii gudbiyeen Maxkamadda gobolka Banaadir gudoomiyaha oo asagana meeshii iiga bilaabay oo arintii ii sii dhammaystiray oo i soo dhaweeyeen oo si fiican wax la iigu qabtay. saan filanayay ma noqonin fikrad xunaa la iga dhaadhiciyay in waxa la yiri waxba lagu ma qabanayo waqtigan la taagan yahay laakiin lama filaanay ugu noqoto inay xaqayga ii soo celiyaan. waana ku mahadsan yihiin. ugu dambeyn gudoomiyaha Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa digniin u diray dadka xooga ku haysta guryaha rayidka iyo kuwa danta guud. sayashay waxaan rabaa sidoo kale inaan fariin u diro dadka caadaystay dhaqanka ah inay haystaan oo ay si xoog u haystaan guryaha dadka kale ama guud ahaan hantida guurtada ama guurtada ah ay gacanta ku haystaan. gaar ahaan waxaan rabaa inaan fariin cad u diro dadka ku faa'iiday oo gacanta ku hayay 28 sano guryaha dawladda waxa ay muhiimad gaar u leeyihiin Maxkamadda gobolka Banaadir. sidaa darteed waxaan u diraynaa dadka sidaas ka dhigtay dhaqan in ay tan u tahay fariin cad. waana si gaar ah isaga xil saaraynaa isku mid ay noo yihiin kuwa ka shaqeynayo amaan darrada iyo kuwa waxa aynan xaq u lahayn gacanta ku hayo oo ku baraaray gardarrada iyo dulmiga ku baraaray isku mid ay noo yihiin. Cabduqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.